heesta waxaa sameeyey waayahaas runtii hadafkoodu ahaa wacyigelinta iyo dhiirigelinta ummadda Soomaaliyeed. ujeedada aan sameynayna waxaa ahayd inaan ummadda Soomaaliyeed xilligan xasaasiga guurka aan ugu iftiimino xaqaa'iq oo jira oo dowladnimo looga dhigayo. waana sababta keentay saameynta aan lahayd shacabka Soomaalina ay aad u soo wada dhaweeyeen. marka heesta adinka ujeedada idinku kaliftay ma wacyigelin sababtoo ah dadka qaar ereyada heesta ku jiray dhaliilayaan marka ma wacyigelina ereyada xataa ugu targasheen runtii ereyada hal iyo labo ama shan iyo saddex hadaa usoo qabatid xaqiiqda aan ka hadlayna waaye inay yihiin nabar in naxdin ummaddan waxay u baahan tahay in nabad loo sameeyo in loo diyaariyo xasilooni marka shiine heestii markii aad soo bandhigteen oo sii dayseen waa aragtay falcelinta ka dhalatay ma filayseen ma u diyaarsaneedeen falcelin intaa leeg shaqo kuma jiro in ummadda Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen heesta aad u dhacaan 30,000 ama 40,000 oo qof ay comment gareysay intaas oo kumanaan ah oo Soomaali ah Facebook-kooda, Twitter-kooda iyo Snapchat-kooda iyo TikTok-kooda ay ku share gareynayaan ay isla wadaagayaan runtii waxay caddeyn u tahay waxa aan ka hadlayno inay yihiin xaq waxa aan ka hadlayno inay yihiin xaq iyo faraha ka dilaacay laakiin marka la fiiriyo saacadihii ugu horeeyay falcelinta ka dhalatay iyo dislike-ta dadka ay sameynayeen taasoo ma muujinayso in dad badan heesta aysan jeclaysanin ama sidaa u sameyseen ha ahaato ama ereyada ha ahaato ama xilliga ha ahaato waa runtii waa arrin aan rabo ummadda inaan u badbaadiyo inkastoo aan ogahay in kumanaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo isbedel doona ay xalay aragtidaas ay ummadda la wadaageen ayagoo weliba ka sargaaray laakiin anagu waxaan nahay ku sii daraynaa dadka maamula kanalka waayaha cusub janalka maamula waxaanu labada saac ugu horeysay waxaanu ku jirnay aan fiirinay real time-ka YouTube-ka xaqiiqda ay qofka markaa sikinkaas qofka meesha uu ka galo iyo inta ay marayso doshi 22,000 oo qof bay maraysay saacadiin ummadda Soomaali qof walba xisaabta waa yaqaan 68,000 iyo 7,000 oo laag iyo 22,000 runtii waxaan ogahay 50,000 ama 40,000 ku dhawaad ka badan loo adeegsaday xorriyadda qowlka lagula dagaalamo islaamka sayga loo soo social media aadaan laga tago islaamka lagu dagaalo qalabka laakiin shiina arinta ah inay arinta dislike-ta la gatay weli lama cadeyn karo laakiin dad badan ayaga yaaba Facebook soo dhigaya oo dadka weydiisanaya dad shacab iska ah oo aan dawladda wax xiriir la lahayn dadkii caadiga ah naftirkooda soo qayb kama ahayn inay dislike-tii ay dadkooda saaxiibadooda weydiistaan ama dadka taageeraya dawladda haddana dawladana u shaqeynin runtii waan aaminsanahay waan aqbalsanahay waan ku ammaanayaa way ogahay inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed taageersan nidaamka maamulka waan sidoo kale waan aaminsanahay kuwa aragtidooda aaminsan oo badan jiraan anigoo aan jaseen aan inkiraynin inta Soomaaliyeed xalay isla ku caawisay ama loogu ololeeyay ama laga codsaday inay waayaha cusub ay caqabado la dhigaan taas tixgelinaya haddana waxaan rabaa in ummadda u badbaadiyo xagla geel ka weyn wax la geliyo aqliga qofka saliimka ma jiro video qof uu la garaynaya laakiin sida xaqiiqda jira waaye YouTube aadan gelin oo aadan dooranin oo aadan like ama dislike oo aadan video bixin taas waxay marka tahay waxaan marka taa darteeda idinku qasabtay miyaa inay xirtaan dislike iyo like dadkii saarayba runtii sababta aan xornay taas kaliya ma sababta aan xornay waxay ahayd in aan waxaan aragnay inay dadka ku miran habaabinayaan inay heesay eelinayaan inay guul ka dhiganayaan inay wasbaayaan shacabka Soomaali ay dislaagarayaan dowladda halbeena waxaan ogaanay ay sii wadaan qarashkooda ay ku bixinayaan ama abaabul ay ku bixinayaan waxa taas ay cadeynaysaa saameynta heesay
awood haddii heestu ay tahay hees ummadda Soomaali ay diiday oo dadku ay jecel yihiin nabar iyo naxariis ama nabadana dadku ay jecel yihiin way adkaanay heestu inay wanaagsan bilyan gaar laakiin commentiska ma akhrisay adiga commentiyada dadka ay ka dhiibanayaan ama fikradaha dadka ay ka dhiibanayaan ay ku qorayaan heesta hoosteeda ma akhrisay sababtoo ah dadka markaan anigu naftirkayga raacay dadka badankoodu waxay u muuqdaan inay heestii ka soo horjeedaan qaarkood waxay leeyihiin ceeb ba idinku tahay qaarkood waxay leeyihiin dawladdan wax badan bay qabatay qaarkood waxay idin leeyihiin waan jecelnahay dawladda ma akhrisay marka laga reebo dad yar oo adigan idin soo qoray waa guul iyo arrimo ama qaarkood waliba idinku qoslay runtii أنا فايسة فقدان كان جوابي وحرر عرض أقدر سمعنا وشيء الأمر يعني الأمر يعني حدث هي الدولة بس كانت ما تصل وأنا هراريسة بس أي كده جساء ورمت الأمر يعني يخرج جدا واحد كان إلى رأي كانت كنت استغنى على قده ومت هراريني وهي أصلا الدولة ما كتشعر انت waxaan aan ka gudbay 2020 qabiil kalaysi dara gaar ah in aan ka gudbay dadka aan comment bixiyay oo YouTube ka hadlaya dadka u soo laabto aragtida way soo dhaweynayna laakiin waxa xaqiiq ah Facebook oo lagu siiyay dadka waxaad ka arkaa Facebook xal waxa ka arkaa dadka la oo dhalinyaro ah xal isku keenay marka shiin aan ka dhaxgalay dhalinyarada aragtidooda dhiibanayay ma waxa aaminsantaa adiga in la soo abaabulay oo abaabulay ahaayeen marag ma doonto waxaan ognahay Facebook aad ka raadsataa waa ognahay dad badan oo nadiif ah oo aragtidooda ay tahay in taageertay nidaamka jira ama xisbiga nabadda waa qadarayna ku tagay aragtida oo laga soo horjeedo oo dowladda Soomaaliya u leeyahay waa aqoonsi waa niyeey wax aragtida promote garayna وكنا كل يردنا بس أرسل لهم دونري إسقاطا مركا إن hadda marka u soo noqono marka meedin ku jirta baqdin ah in YouTube-ka ay video-giina ay tiraan haddii ay sii socoto dadka sida hoose ee u dislike gareynayo ama in YouTube-ka naftirkiisa bartiina ay saameyn ku yeelato arrintaas oo lidin ka xir ونوع كمية ذلك الأساس واحد بس حدا يشيلين فتروح تجيلك إسلام الثارة ولا حدا كلته تمرس سلبك عليه كلته تمرس سلبك يسمع حدا بالك رد يوتيوب وكل شيء هاي أفكارك كلا دوان كلا دوان اليوم كمان في حالة إنه كنا حقولين معي 10 لكن هذا الوريث من أعرف وين هاي هذا الفكر معها يوتيوب كما شقيا يوتيوب وحكو شقيا أركتنا كلا دوان وحال ملوان ونشوفه وكل ugu dambeyn marka isku daydeen inaad dadka commentiyada idin soo diraya ama fariimaha idin soo diraya u jawaabtaan oo ku qancisaan waxa heesta ujeedadeedu ay tahay xitaa haddii aad aaminsan tahay dadka in la soo abaabulay oo la soo kiciyay si ay u comment gareeyaan hadda YouTube-ka bartiina mid video ku jiro kale 33,000 oo qof ka badan yaa ilaa hadda aragtidooda ka dhiibatay ma isku daydeen inaad dadka la hadashaan oo qancisaan fikirkiina si ay inaad xor u tihiin u tustaan runtii waan isku daynaa shacabka waa la hadalnaa أربعة كنا هذا الناس يتوقعون كلام أركيد كذا واحد أسود بدي وأنا سكودي أركيد أنا كجنب كذا وفرس لكن أيام برا هل لي أنا هل واقع يبدأ كل أقوم ضد جاري رجوة ليرانس عاية رياض سو عاية كبر سو عاية سو عاية من الناس هل وأنا استعماله aragtida markii shacabka Soomaali aragtida kala duwan dad ay aragtida la qiimeeyo qofku waa inuu wax ka hadlo shacabka maaga inuu gaariga maaga dowladda maaga